salaamullaahi saaxiibayaal meel walba dunida ka joogtaan maanta waxaan idila wadaagayaa dhacdo aan hore uga dhicin adduunka. nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa noqday qofkii ugu horreeyay taariikhda ee lagu talaalo wadno doofaar kadib markuu xanuun kala soo darsay dhinaca wadnaha. David Bennett oo da'diisu jirta 57 sano lana daalaadhacayay xanuun kala soo darsay dhinaca wadnaha. dhakhaatiirta xarunta caafimaadka ee jaamacadda Maryland kuwaasoo fulinayay qalliinkan oo qaatay muddo gaadhaysa 7 saacadood kaasoo haatan u muuqda mid guuleystay sidoo kalena fasax ka helay waaxda sharciyeynta caafimaadka ee dalkaasi. cilmi baadhistan oo socotay in muddo ayay dhakhaatiirtu u muuqdaan qaar ka mid ah kuwaasoo wadnaha doofaarka wax ka bedel kaga sameeyay dhinaca hidde-sidaha kuna guuleystay inay ku tallaalaan qof bilaadan. qalliinkan oo dhacay muddo 3 cisho ka hor ayaan weli wax dhibaato laga soo sheegay taasoo aan si cad loo garanin intuu sii wadi doono shaqada wadnaha. in gaadhaysa 17 qof ayaa maalin kasta ugu geeriyooda dalka Mareykanka xanuuno la xidhiidha wadnaha. sidoo kale dadka ka warsugaya xaaladan iyo halkay ku dambayso ee iyaguna raba in ay galaan qalliin sidan oo kale ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay gaadhayaan 110,000 kuna sugan dhammaantood dalka Mareykanka. arrinkan ayaa haddii uu guuleysto noqonaya tallaabo loo qaaday dhinaca horumarka taasoo lagu badbaadin doono malaayiin qof oo ku kala sugan caalamka kana dhigaysa doofaarka mid ka dabargo'a dunida haddii arrinkan lagu guuleysto kaasoo sababsan doono caafimaadka malaayiinta qof ee ku kala sugan dunida. dowladuhuna ay xadidi doonaan isticmaalka iyo cunitaanka doofaarka. waa anigoo Maxamed Siciid ku gurana wadaagaya halkan xog ku saabsan waxyaalaha dunida ku cusub iyo wixii ka soo kordha oo halkan ka heli kartid. fadlan nagu soo biir nagana mid noqo asxaabta nagula jirta halkan.